subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa aroor axada oo bisha abriil ay tahay 18 sanadka 2024 idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aan idinkugu hayno idaacadeena subaxnimona waxaa ka mid ah saameynta roobabka iyo duufaanta El Niño ee dalka Kenya. Warbixin iyo waraysi ayaad ku maqli doontaan arrintaasi. iyadoo loo balansanaa in iskuuladii la furo taariikhda 29 isniinta soo socota lagu soo aadan roobabkii day waxay keeneen markiin bal jadwalkii furitaanka laga fikiro dad baa qaba in iskuuladii dib loo dhigo si biyahan iyo dadadkan looga fakado. sidoo kale maqli doontaan Mareykanka oo ka digay qatarta Shiinaha iyo dagaalka Ukraine. qodobadaas iyo kuwa kale ayaan idinkugu haynaa idaacadeena subaxnimo balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. ayaa sabtidii sheegtay inay dib u eegis ku sameynayso soo jeedinta cusub ee Israa'iil ee xabajoojinta marinka Gaza ayadoo Masarna ay joojinayso dadaaladeeda lagu doonayo in lagu soo afjaro dagaalka loogana hortago weerarada dhulka ee Israa'iil ay qorsheynayso inay ku qaado magaalada koonfureed ee Rafah. Saraakiil sarsare oo ka tirsan Xamaas sarkaal la yiraahdo Khaliil Al-Haya ayaa waxa uu wax tafaasiil ka bixinin hadalka dalabka Israa'iil balse waxa uu sheegay in jawaab u celin u tahay Xamaas 2 toddobaad ka hor arrintan. wadaxaajoodiyada horaantii bishan ayaa waxay ku qotomeen hindisaha xabajoojinta 6 toddobaada iyo sii deynta 40 maxaabiis rayid ah iyo kuwo buko oo la heystayaal ah si markaasi loo sii daayo boqolaal maxaabiis Falastiiniyiin ah oo ku jira jeelasha Israa'iil. hadalka Xamaas ayaa yimid saacado kadib markii wafdi heer sare oo Masar ay soo gabagabeeyeen booqasho ay ku joogeen Israa'iil halkaas oo ay kaga wada hadlayeen aragti cusub oo ku saabsan xabajoojinta dabada dheeraatay ee ka socota Gaza sida uu sheegay mas'uul u dhashay dalka Masar oo diiday in magaciisa la shaaciyo. safiirka dalka Jarmalka u jooga wadanka Pakistan ayaa sabtidii shalayta ahayd waxa uu la kulmay dhaleeceen uga timid baraha bulshada dadka isticmaala kadib markii uu ka codsaday dibadbaxa Falastiini ah taageerada in ay ka baxaan shirka xuquuqul insaanka halkii ay kaga qaylinayeen arrimaha Falastiin in dib loo eego. hadal joojintaasi ayaa safiirka Alfred Garnes waxa uu ka hadlayay xuquuqda madaniga ah munaasabad si toos loo daawanaya baraha bulshada magaalada Lahore ee dalka Pakistan markii nin dhalinyaro ah oo u dhashay Falastiin uu ka kacay kursigiisa oo uu ku dhawaaqay diblomaasiga Jarmalka ah asagoo uu weydiinaya iga raalli oo mudane safiir waxaan aad ula yaabay sida geesinimada leh aad uga jawaabayso su'aalaha ugana hadlayso xuquuqda aadanaha adiga oo dalkiina si toos ugu jiro ayuu yiri xadgudubyada ka dhanka ah dadka xuquuqda Falastiiniyiinta ay leeyihiin iyo dagaalka ku socda. hase yeeshee waqti yar kadib ayaa goobtii waxay isu bedeshay mid buuq uu ka dhashay kadib markii safiirka si qaldan uu markaasi ula hadlay ninkaasi Falastiiniga waxaana dadka intooda badan la arkayay ayadoo baraha bulshada ay si weyn uga falcelinayaan. warkii dunidana waa naga intaa. wararkaasi aad ka dhageysanaysaanna waa Washington. aan ku bilownay dalka Kenya saameyn xoogan waxaa ku yeeshay oo jaray isu socodka dadka iyo gaadiidkaba duufaanta El Niño iyo roobab maalmahan ka da'ay halkaasi goobo badan oo airportka uu ka mid yahay caalamiga ee magaalada Nairobi ee Jomo Kenyatta International Airport ayaa shaqo joojin soo wajahay iyadoo diyaaradihii ka degi lahaana la joojiyay. wararkii ugu dambeeyay ee saameynta duufaanta iyo roobabkaasi waxaa magaalada Nairobi ka soo dirtay wariyaha VOA Maryan Maxamuud Barre. in ka badan 30 dowlad deegaan ayay saameysay dhibaatada ka dhalatay roobabka dabaylaha wata oo 50 qof ka badan ay ku dhinteen 14,000 oo qoysinka badanna ay saameeyeen roobabka guud ahaan oo 30,000 oo dad ka badanna ay waxyeello ka soo gaartay. roobabka El Niño oo 2 jeer ka da'ay dalka sanadkan sida ay sheegtay hay'adda laanqeyrta cas ee Kenya
safarada dhulka haddii aan ku bilowno gobolka dadka soomaaliyeed degaan ee north eastern ayaa kamida deegaanada saameynta daran roobabka ay ku yeesheen wadooyinka oo qulqulka roobabka ay goynayaan ka sokow waxyaabaha dhacaya waxaa kamid ah in biyaha xooga iyo xajmiga ay ku socdaan ay meelaha qaar gawaarida gedinayaan maadaama roobabku laftooduna ay dabaylo sii wataan. roobabka da-aya waa El Niño, dowladana gurmad kasta ayay sameyneysaa iyadoo Kenya Red Cross ay sheegtay kontomeeyo qof in ay laakiin warbaahinta gudaha ayaa ku waramaysa in ka badan 80 qof ay geeridu sii cagacagaynayso oo meydad hor leh sabtidii la helay maadaama dadku dad ay la tegayaan dib laga helayo markaasi meydadkooda. wadooyinka caasimada magaalooyin ay kamid tahay oo bad isku bedelay ama webi oo kale ayaad arkaysaa. xaafadaha qaar ayaana roobabku dumiyeen, biyaha ayaana barakiciyey in ka badan 40,000 oo qoys oo deegaanadoodii ay u suurtageli weysay in ay ku noolaadaan sida iyana qaramada midoobay ay ku warantay. dowlada deegaanka Nairobi ayaa la tacaalaysa samata bixinta dadka xilli kasta daadadka ay markaasi halista ugu jiraa. mararka qaarna waxa ay ugu baaqayaan in dowladu gurmad heer qaran caasimada u fidiso oo xaalku uu ka awood badan yahay xafiiskooda. mararka qaar roobabkan dabaylaha wata waxa ay khatar gelinayaan duulimaadyada hawada sare. maalmo ka horna diyaarado ku degi lahaa Nairobi ayay ku adkaatay inay soo galaan ceeryaamada iyo duruufaha garoonka oo inkastoo heer caalami uu dhisan yahay xajmiga biyuhu ay markaasi dabaylaha wata ay gaareen heer aan horey loo arag. wax ka yar 20 dowlad deegaan ayaanay weli gaarin dhibaatada roobabka sida laanqeyrta cas ee Kenya ay ku sheegtay xogtii ugu dambeysay ay daabacday. qulqulka biyaha ay roobabka dhigayaan ayaa saamaxayn socodka xataa inta uu istaagsan yahay roobku. cabsida iyo walaaca ugu weyn ee reer Kenya xilligan ay qabaanna waxa weeye haddii aad baxdo aanay daadadku kula tagaan iyo in roobku uu markaasi kugu helo wadooyinka oo ugu yaraan ay waxyeelada kusoo gaarto noqoto in aad go'doonto, taasi aan la garanayn waxa ka dhalan kara. Maryan Maxamuud, VOA, Nairobi. mahadsanid Maryan Maxamuud Barre. dhinaca kalena waxaa jira doodo ku aadan sidii dib loogu furi lahaa goobaha waxbarashada ee dalka Kenya maadaama dalka ay ka da'een roobab xoogan oo daadad wato kuwaasi oo qaarkood sida warkaasi horeba aad ku maqlayseen sababay in biyo ay fariistaan qaar ka mida goobaha waxbarashada ee dalkan. waa tan wariyaha VOA-da Intisaar Saalax Xuseen. ardayda wax ka barata iskuulada ku yaala dalka Kenya ayaa fasax galay horaantii bishan Abriil iyadoo dowladdu ay qorsheynayso in iskuulada dib loo furo 29ka bishan oo ku beegan maalinta Isniinta ah ee soo socota. haddaba qaar ka mid ah iskuulada ku yaala dalka Kenya ayaa waxaa saameeyay roobabka daadadka wata ee ka da'aya dalka Kenya. arintaasi oo walaac ku aadan inuu hakad ku yimaado waxbarashada ku dhalisay waaxda waxbarashada iyo ardayda dalka Kenya. Dr. Cabdisalaan Aadan waxa uu ka mid yahay macalimiinta Kenya. waxa uu sheegayaa in iskuulada qaar ee wadanka ay saameeyeen daadadka, arintaasina ay sababi karto in waqtigii iskuulada dib loo furi lahaa uu hakad ku yimaado. iyadoo loo ballansanaa in iskuuladii la furo taariikh 29 Isniinta soo socota lagu soo aadan, roobabkii day waxay keeneen marka in bal jadwalkii furitaanka laga fikiro. marka waxaa dad baa qaba in iskuuladii dib loo dhigo si biyahan iyo daadadkan looga fakado. laakiin markaas fiiriso suxufta ama jaraa'idka soo baxay labadan maalin soo dhaafay waxaa aada ugu badan formulaga ah in iskuuladii waqtigeed loo furo, laakiin bal macluumaad dheeraada laga arooriyo wadanka guud ahaan meelaha ay wax ka dhaceen, kadibna iskuuladii marka hadii waqtigii lagu daraayo iyo haddii kalena la fiiriyo. laakiin waxaa ugu xoog badan in iskuulada waqtigeeda lagu furi doono, laakiin la fiirin doono meelaha saameynta soo gaartay. Dr. Cabdisalaan Aadan ayaa sheegaya inay muhiim tahay in la ilaaliyo badqabka ardayda maadaama ay jiraan arday badan oo meelo fogfog u aada goobaha waxbarashada. wadankan Kenya guud ahaan dadku meelo fogfog ay iskuul u aadaan, qaar meelo biimareen ay maraan. marka waa in la fiiriyaa ardayda safetygoodii, iyadoo ognahay in roobabku ay xataa musqulaha iyo meelaha ay ku ciyaaraan ay fadhiisteen, in mar safetygoodii la ilaaliyo, taasna waa muhiim. laakiin guud ahaan waxaan u malaynayaa in la aruurinayo data ku saabsan saameynta roobabku ay ku yeesheen iskuulaadka iyo dhismayaasha.
sidoo kale doctor cabdisalaan aadan ayaa waxa uu tilmaamayaa in haddii hakad uu ku yimaado waxbarashada ay sababi karto in ardayda uu ku yimaado dib u dhac ku aadan waxbarashada sanad dugsiyeedka. haddii iskuulka loo dibdhigo yani labadan wiig ama wiig la dibdhigo saameyn jadwal ku yeelan kartaa. waa sax waa ku yeelan kartaa sababta waxawey taamkan waa taam muhiime oo imtixaan ka horeeyo marka waxawey ay dibdhac kastoo ku dhaco wuxuu keenayaa in saacadihii ay gurmaan ayaamihii ay gurmaan taasna waxay keenaysaa xoogo dibudhac dhanka oo fulinta manhajka. marka waxaan u malaynayaa in dowladdu ay aada ugu howlan tahay inay arrimahaas ay meel mariso oona iyadoo ka fiirinaysa dhanka safetyga iyo mataqaanaa badqabka caruurta. intisaar saalax xuseen v o a nairobi. washington ayaad naga dhagaysanaysaan. xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa waxa uu ka digay in washington ay tallaabo ka qaadi doonto shiinaha haddii uusan joojinin taageerada waxyaabaha ruushka ka saacidaya dagaalka Ukraine. haddaba maxay tahay waxyaabaha washington ay qaban karto? hadalkaasina ma ku dhici doonaa dhegaha Beijing? warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa soo diray londonna ka soo diray wariyaha v o e da ee qaaradda Yurub cabdixaafid cawil ismaaciil. ma aha markii ugu horeysay ee washington ay u digto shiinaha arrimo la xiriira dagaalka Ukraine iyo ruushka. saraakiil sare oo ka tirsan maraykanka ayaa sheegay in Beijing ay shidaal ku sii shubayso khatartii ugu weyneyd ee soo wajahda ammaanka Yurutan iyo wixii ka dambeeyay dagaalkii qabooba. inkasta oo aan wasiirka arrimaha dibadda maraykanku faahfaahin ka bixin tallaabooyinka ay dowladiisu qaadi doonto, Blinken ayaa sheegay in ay horumar ka gaadheen meelaha qaarkood. xogaye Blinken ayaa ku ammaanay dowladda shiinaha dadaalka ay gelisay in daroogada loo yaqaano fentanyl aanay gaadhin gudaha maraykanka. daroogadaasi waa meesha ay ka soo geli jirtay maraykanka. daroogadan ayaana xaaladda caafimaad ka abuurtay gudaha dalkaasi. xogaye Blinken waxa kale oo uu sheegay in shiinuhu kaalin mug leh ka geysan karo xaaladda ka aloosan bariga dhexe, isaga oo farta ku fiiqay xiriirka uu shiinuhu la leeyahay Iiraan. xogaye Blinken waxa uu ka codsaday Beijing in ay ka howlgasho in aan iska hor imaadkii Iiraan iyo Israa'iil faraha kasii bixin. haddaba digniinta Washington ee shiinaha intee ayay gaarsiisan tahay? muxuuse maraykanku qaban karaa marka ay noqoto shiinaha? maxamed xasan dable oo ah falanqeeyo degan magaalada Leicester ee dalka Britain ayaan su-aashaasi weydiiyey. cabdi xaafid, digniinta maraykanka waa mid aada iyo aad la dhihi karo aad bay u fog tahay, wayna culus tahay. maxaa yeelay maraykanka waxay dareemayaan in shiinuhu uu aada u dhiiran yahay, khatarna ay tahay in uu Taiwan oo ay xulafo yihiin maraykanka khatar uu ku yahay oo laga yaabo in mataqaanaa ay oga cabsi qabaan in uu qabsado intuu kusoo duulo. waxaa kaloo jirtaa in dowladaha ay xulafada yihiin ee ay ku muransan yihiin shiinuhu badda la yiraahdo badda koonfurta shiinaha oo dhowr dowladood ay mataqaanaa ka dhexis, laakiin shiinuhu uu isagu sheegtay in uu leeyahay, cidna uusan mataqaanaa u ogolayn. maraykanka xataa ku cadaadiyey, digniinana siiyey inuu ka durko halkaas, inuu khatar ku yahay dowladaha ay ka midka yihiin sida Japan iyo South Korea markaan ka xuso iyo kuwo kaloo badan. marka khatartan runtii aada iyo aad bay u fog tahay, waxayna tusaysaa oo ka turjumaysaa in dagaalkii qaboobaa uu labada dal uu u bilowday, dagaal qabow uu u bilowday oo ah in ay si dadban runtii isku waxyeeleen doonaan. marka shiinuhu wuxuu aada uga caraysan yahay in maraykanka uu dhowaan madaxweyne Biden saxiixay lacag gaaraysa ilaa 95 bilyan oo dollarka maraykanka oo ugu kala deeqay Taiwan, Ukraine iyo Israel. arrimaha ayaa muran aada u ba'an dhaliyey. dhinaca kale, shiinuhu ma dhagaysan doonaa walaaca Washington? waa kan mar kale maxamed xasan dable. cabdi xaafid, uma eka shiinaha mid dhagaysan doono walaacan runtii uu maraykanka muujinayo, sababtoo ah shiinuhu wuxuu u arkaa in isaga lagu soo xadgudbay maadaama dhaqaalaha la bixiyey ee Ukraine waxaan ka wadaa Taiwan lagu taageerayo ay ka dhigan tahay in Taiwan lagaga difaaco xadgudub ama weerarka ka yimaada dhinaca shiinaha. shiinuhuna runtii Taiwan muhiim bay u tahay, wuxuuna ku talagelayaa siduu ku qabsan lahaaba
mar un inuu gacanta soo gashado ama siyaasad ama xoog. marka taasi damaciisa bay hor istaagaysaa. taa markaa ka yeeli maayo. waxaa kaloo jirta oo Blinken uu kala hadlay dhigiisii arrimaha dibadda ee Shiinaha in mataqaanay ruushka macnaha Shiinaha uu joojiyo gaargaarka iskaashiga military ee uu leeyahay ruushka iyo sida uu mataqaanay u caawinayo ruushka dagaalka Ukraine uga caawinayo. arrimahaas wuxuu cadeeyay Shiinaha in Mareykanka uusan ka aqbalaynin in uu isagu u yeeriyo kuna tilmaamay ciduu xiriir la yeelan karo ciduu xiriir la yeelan karin. arrinkaa markaa uma eka mid Mareykanka sida uu doonayo uu Shiinaha u dhagan nugulaan doono. hase yeeshee labada dhinac waxay isla qireen inay u baahan yihiin in la isfahmo iyo in xisaab khaldan la iska ilaaliyo taasoo soo dedejin karto in ay dagaalamaan. booqashada Blinken oo ah tii labaad ee 10 bilood gudahood uu ku tago Shiinaha waxa ay ka dhigan tahay qayb ka mid ah kororka weyn ee wadahadalka iyo diblomaasiyadda u dhaxaysa quwadahan iska soo horjeeda. waxaana u muuqataa in Washington ay dadaal ugu jirto in aanay mar dambe iska hor iman qaab dagaal Iiraan iyo Israa'iil kadib markii ay Tehran muujisay inay gaari karto gudaha Israa'iil. xiriirka u dhaxeeya Washington iyo Beijing waxa xumeeyay arrimaha Shiinaha ee la xiriira Taiwan iyo badda koonfurta Shiinaha iyo waliba xayiraadda Mareykanka ee dhoofinta tiknoolajiyada casriga ah. waxaa kaloo waxyeelo ay kasoo gaadhay isku dhac ka dhashay basaasida Washington sheegtay inuu Shiinuhu sameeyey isaga oo u soo diray hawada Mareykanka waxyaabaha la buufiyo ee hawada sabeeya. cabdixaafid Cawir Ismaaciil VOA ee London. sanad cabdixaafid weli waxaad dhegaysanaysaan Washington. farsamada gacanta ayaa shaqo abuur fiican u noqotay dhalinyaro iyagu la daalaadhacaya shaqo la-aanta jirta waxaana taasi ay yareysay dhibaatooyinka fursadaha shaqo la-aaneed ee ka jira meelaha qaarkood. wariyaha VOA-da Haashim Sheekh Cumar Good ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Boorame. dhalinyarada barata xirfadaha gacantu waxay inta badan helaan shaqooyin ay kaga maarmaan shaqo la-aanta waxaanay ka fursad badan yihiin dhalinta qayrkooda ee aan iyagu waxba baran. marka hore assalaamu calaykum. magacaygu waa Xamdi Jaamac Ismaaciil. waxaan ku noolahay magaalada Boorama. waxaan ahay arday kasoo baxay jaamacadda Camuud. halkan waxaan ka bartaa maxay ahaydeen qaybta qurxinta gaar ahaan xinaha iyo makeupka. xinahoo isugu jira qaybo fara badan. qaybta maxay ahaydeen aroosyada, qaybta caadiga simbalka, qaybta maxay ahaydeen xafladaha. waxaa kaloo bartaa makeupska oo ah maxay ahaydeen qaybta wejiga weya makeupku lakinisana wuxuu isugu jiraa in simbal aad u marsato oo laga reebo agabka qaarkii in lagu mariyo iyo in ful lagu mariyo oo aroosada tahay amba xaflad weyn aad tegayso. waxaan aada ugu faraxsanaya inay ahaa arday ka tirsan barashada xirfadan aniga oo ku faraxsan inaan si fiican u bartay. maantana aan solan karo waxaa tahay qof wax ku qabsan kara oo bulshadiisa uga faa'iideyn kara hadday noqoto qayb barisa ama hadday noqoto qayb ku shaqaysiya. haddaba ujeedada dhalinyaradu u barata xirfadaha gacanta waa inay shaqo ku helaan iyo inay ganacsi ku abuurtaan si ay noloshooda ugu maareeyaan. sababta ugu weynaan is odhan karo waad u baratay waxa weeyaan dad aada u fara badan qaar iyagoo jaamacadda ku dhex jiray bartay kadibna taasi u noqotay shaqo aada u weyn oo kaga maarmi karaanba shaqooyin kale iyo kuwa intay dhammaysteen maxay haydeen ay isidhaahday maad ku shaqaysataan oo hadda bulshada ku dhex nool oo ku shaqaysta xirfadda. maahan yacni keliya inaan maxay haydeen barasho iga tahay laakiin waxa weeyaan beri ka maalin haddii qalinkaaga wax kuu goyn waayo oo maashu wax iska bedelaan siad xirfadaada ugu shaqaysan kartaa oo aad ula iman kartaa waxaad adigu leedahay ood adigu barato khaas ku ah ood wax ku taransin karto. waxay noloshu u baahan tahay qayb qalinkaaga waxaad ku tarsan karto iyo qayb xirfadaada wax ku tarsan karto. waan ku kalsoonahay inaan haddii aan iskugu talagalo oon u diyaargaloobay inaan ku shaqaysan karo 100% aan wax badanna kaga faa'iidaysan karo. Hodan Bashiir waxay ka mid tahay gabdhaha ka qalin jabiyay jaamacadaha ee aqoontii ay halkaasi ka barteen ku kabay xirfadda gacanta si ay shaqo ugu helaan. waxaanay dhalinyarada ku dhiirigelinaysaa in barashada xirfadaha ay ku kabaan aqoontooda ay ka barteen jaamacadaha.
waa hodan bashiir maxamed. qofli kasta oo joogo oo dhalinyarana waxaan ku dhiirigelinayaa ama ku boorinayaa inaynan jaamacad laga qalinjabiyo iyo PhD la qaato waa muhiim, laakiin inaan keligeed wax lagu cunin, laakiin ay nolosha waxa ku kaabaya markasta kula soconaya kaa hadhayn ay xirfadda tahay. xirfaduna waa shayga keliya nolosha kaabi kara, maadaama ay maanta dalkeena ka jirto shaqo la'aan aad u baahsan. goobaha dhallinyaradu ka bartaan xirfadaha gacantu maaha dugsiyo toos ah, balse waxay ka bartaan xarumo ay leeyihiin ururada dhallinyarada sida ururka Soosta xaruntiisa magaalada Boorama. madaxa ururkaasi Cabdiqani Cabdilaahi ayaa tilmaamaya xirfadaha ay dhallinyarada ku tababaraan. guud ahaan ilaa 10 xirfadood baanu bixinaa. xirfadaha waxaa ka mid ah xirfadda loo yaqaano dawaarka ama harqaanka say Soomaalidu nimo yaqaano, oo makiinadaha iyo habka casriga ee wax loo tolo aanu barno, iyagoo qaybta ay u badan yihiin inta badan dumarku xoogaa rag inay ku jiraan. waxaa ka mid ah xirfadda laydhka iyo sida loo geliyo iyo laydhka. waxaa ka mid ah sida loo cilad bixiyo moobilada iyo elektroniga qalabkan isticmaalno. waxaa ka mid ah sida soolarta iyo loo rakibo iyo sida loogu bedelo markaa dabkeega loo isticmaali karo oo hadda ay difacdi ku jirto. waxaa ka mid ah qurxinta wejiga dumarka iyo xinaha. waxaa ka mid ah cunto karinta iyo macmacaanka. waxaa ka mid ah videographic designka iyo computer skillska oo ardaygu halkaasi uu waxna duubi karo, una design garan karo computerka, uu wax daabici karo. waxaa ka mid ah biyagelinta. qaybaha u dambeeya waa xirfadihii qaybtaas soft skillska ama loo yaqaano waa hal abuurka ganacsiga ama wax loo yaqaano entrepreneurship iyo business development iyo job hunting skills. ardaygu markuu aduu waxaan dhameeyo sidii uu raadsan lahaa shaqo ama uu shaqo u abuuran lahaa, markaa ciddii maalgelin lahayd iyo waxyaaba anaguna markaan ka tarno. marka intaas iskugu jiraan xirfadahan baro dhalinyarta. ka urur ahaan yaa idinka caawiya shaqooyinka intaa leeg ee aad baraysaan dhalinyarada ee la xidhiidha dhinaca xirfadaha kala duwan? aad baad mahadsan tahay Haashim. hadda ciddaan wada shaqaynta leenahay haddaan xuso ee naga caawiya dhalinyarta inaan xirfadaha ama soo saarno waxaa kow ka ah hay-adda Concern Worldwide oo iyadu mashaariic kala duwan aan ka wada shaqayno dhinaca dhalinyartana aad nooga caawisay. waxaa ka mid ah onuyada partner nahay. waxaa kaloo ka mid ah Save the Children. waxaa ka mid ah hay-adda SOS Children Village. waxaa ka mid ah hay-adda Oxfam. waxaa ka mid ah hay-adda IOM. intaasba waxay yihiin kuwa naga caawiya xagga dhalinyarta. Haashim Sheekh Cumar Good, VOA, Boorama.